kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhaanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya madaxweyne Qorqor oo ku dhawaaqay liiska musharaxiinta kaba dambeeyay aqalka sare ee Kurinayd Galmudug xaaf oo abaabul iyo ciidan ka wada magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug maxaa lagu qancinayaa madaxweyne xaaf maadaama laga reebay liiska dadka aqalka sare ee maamulkaasi Cabdi Qaydiid oo banaanka yaala kuna guuleysanaya kursigii la soo saaray ku dhawaaqistiisa iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda Galmudug doorasho khilaaf abuuri karta oo ka dhacaysa samaha soo aadan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaasi qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku eegaynaa warkeena balse marka hore saaxiibayaal u diyaar garooba qodobada aad daawateen oo dhameystiran aynu ku bilawnay madaxweyne Qorqor ayaa ku dhawaaqay liiska musharaxiintii harsaneeyay ee aqalka sare xilli xaaf uu walaac weyn ka muujinayay in kursigaas laga reebayo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa soo saaray liiska musharaxiinta labada kursi aqalka sare ee ka dhinayd maamulkiisa wareegga safarka xafiiskiisa xilli dambe oo xalay ahayd ayaa labadan kursi la sheegay inay ku tami doonaan laba musharax oo kala ah Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid iyo Cawil Nuur Cali iyo sidoo kale Cabdi Cismaan iyo Mahad Aadan Guuleed liiska musharaxiinta ayaa waxa laga reebay senator Cabdi Waahid Cilmi Goonjeex oo horay uga mid ahaa labada kursi lisku heesi iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo hore u sheegay inuu musharax u yahay kursiga uu ku fadhiyo Cabdi Qaydiid madaxweynihii hore ee Galmudug Xaaf ayaa hore uga digay in laga reebo liiska musharaxiinta kursiga hase yeeshee ay dhici doonto qiyaamihii balse waxay u muuqataa markan in laga itaal ranaaday Xaaf lana qiyaameeyay liiskii musharaxiintana gabi ahaan laga reebay ilaa iyo hadda ma jirto wax war oo ka soo baxay Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo kamid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda Galmudug ee kursigaas balse wararkii ugu dambeeyay ee Kurinayd Dhuusamareeb waxa ay sheegayaan in inkastoo xaaf la qanciyay haddana wali uu wado qanacsanaan la'aan iyo shaki weyn oo ka muujinayo in Axmed Qorqor uu ku boodo maadaama ballanqaad dhowr la siiyay Axmed Ducaale Geelle Xaaf xogo hoos oo aan ka helnay madaxtooyada Galmudug waxa ay sheegayaan in xaaf lagu qanciyay lacag gaaraysa $1 milyan si uga tanaasulo tartanka ama kursiga uu raadinayay oo hadda ku fadhiyo Cabdi Qaydiid markan loo ku soo laabanayo sidoo kale xaaf ayaa la sheegay in loo ballan qaaday kursi golaha shacabka oo haatan ugu fadhiyo Axmed Macalin Fiqi wasiirkii hore ee amniga ee Galmudug haatanna kursigiisa qilqil uu soo galay labada oday ee beesha Saacad ayaa u muuqda markan in kursigii ay isku hardinayeen Qorqor uu kala garsooray isla markaa loo qanciyay xaaf in dhanka iyo golaha shacabka loo wareejinayo halka Cabdi Qaydiidna la siinayo ama loo xiray kursigiisii musharax malxiisna hore uu soo watay balse dhaqaaqi ciidan ayaa laga dareemayaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaa la sheegay in heshiiskan hoose ee dhex maray Qorqor iyo sidoo kale xaaf ay aad uga soo horjeedaan beesha kursigan iskale oo la sheegay inuu jiro musharax kale oo saameyn ku dhex lahaa beesha oo la yiraahdo Kudin Xiima balse Qorqor liiska buu ka reebay waxaana hadda Dhuusamareeb ka soconaysa abaabul dagaal hubaarursi iyo ciidamo waxaana qarka loo saaran yahay in magaalada dagaal uu ka dhaco hase yeeshee Cabdi Qaydiid ayaa la sheegay in uu dhexaadin ka dhaxwado beesha kursigan iskale isaguna uu sheegayo in kursigaas uu ku matali doono Qorqorna faraha laga qaado balse saacad kasta iyo xilli kasta Dhuusamareeb dagaal ka qarxi kara oo ciidamo fara badan ayaa la sheegay inay ka soo kicitimeen dhanka iyo magaalada Gaalkacyo iyagoo ku soo wajahan magaalada Dhuusamareeb sida xogahan helnay ay sheegayso inkastoo xaaf uusan ka hadlin sababta looga reebay liiska haddana taasi waxay ka dhigan tahay inuu qaatay wada hadalkii waantii lagu dhex jiray iyo lacago in loo ballan qaaday lana siinayo waxa la sheegay in la siiyay lacag kaash ah balse waxaan la hubin in uu heli doono kursiga Axmed Macalin Fiqi uu hadda ku fadhiyo ee golaha shacabka ah balse waxay ka mid tahay ballanqaadkii xaaf sababta ka dhigtay inuu ka haro kursigii Cabdi Qaydiid uu ku heesay jahwareer ayaa markan ka taagan Dhuusamareeb qiyaamihii xaaf hore u sadaaliyeen way baaqanaysaa markan hase yeeshee waxaa dhici kara dagaal kale oo sababi kara in kursiga Cabdi Qaydiid ku soo laabashadiisa dagaal badan iyo dhiig u daadan doono Qorqor ayaa si u marqaati furay ama u xiray kursigan Cabdi Qaydiid maadaama ballanqaad hore uu ka dhaxeeyay labadooda Cabdi Qaydiidna saaxiibada uu leeyahay Qorqor dhowr jeerna uu ka xaliyay arrimo ku furnaa oo dhanka siyaasadda heer federaal iyo heer maamul goboleed intaba
beesha iskale kursigan ee odow oo sacad ayaa waxa ay doonayaan dhankooda in Cabdi Qaydid uusan ku soo laaban kursigan isla markaana kursigan la siiyo midkood Xaaf ama Kudun Xima oo wiil dhalinyaro ah balse taasi ma dhicin oo qorqor ayaa qaatay go'aanka dambaysa wuxuuna meesha ka reebay ama tatanka uu ka reebay labada nin ee beeshaas ay doonayeen isagoo Cabdi Qaydid u xiray kursigaasi sidoo kale Cabdi Goonjeex ayaa san laga reebay dhamaanba aqalka sare ee Soomaaliya iska daa in liiska lagu soo daro balse ninkan ayaa la sheegay in beeshiisa ay diideen in Goonjeex uu tatamo taabadelkeedana nin ay soo gudbiseen ayuu qorqor ugu daray liiska musharaxiinta labada kursi ee ka dhinaydna sida ayaa lagu buuxinayaa aqalka sare ee galmudug ku leedahay dowladda federaalka Soomaaliya saadaasha iyo sidoo kale marka la fiiriyo kursigan hadda Cabdi Qaydid loo xiray waxa ay muujinaysaa in labada musharax ee qorqor loo rabo kursigan ay kala yihiin waa mid koowaad Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa si weyn u heli kara kursigan marka la fiiriyo Cawil Nuur Cali oo aan malxiis siyaasadeed Cabdi Qaydid oo hore u soo watay waxa la sheegay in wiilkan ay yihiin xigta iyo qaraabo dhow ama adeer u yahay sida xogta dhanka wararka uu helay ay tilmaamayso waxaan la saadaalinayaa in Cabdi Qaydid kursiga koowaad uu ku soo bixi karo maadaama ninka la tamaya uu yahay malxiis siyaasadeed isaga uu wato aadna uu kalsoon yahay sida xogtan helnay ay tilmaamayso shakhsiga labaad ayaa ah Cabdi Cismaan Xareed ninkan ayuu qorqor doonaya inuu ku soo baxo kursigan waxa la tamaya Mahad Aadan Guuleed balse Mahad waa malxiis siyaasadeed uu ninkan hore u soo kaxaysay codkana waxa la siin doonaa Cabdi Cismaan Xareed oo qorqor kursiga uu la rabo labadan kursi oo korina dhanka qorqorna markan way ka soo dhamaadeen Cabdi Qaydidna rajo weyn ayuu ka qabaa inuu ku soo baxo kursigan aqalka sare markiisii labaad Xaaf dhankiisa lacag iyo kursi kale ayuu qaatay si uu uga tanaasulo in Cabdi Qaydid uu loodiyo inkastoo Xaaf yahay milyaneer haddana lacagtu ma diido qofkii la siinaye waxa uu aqbalay in uu qaato dhaqaale xad dhaaf ah si kursigaas uga tanaasulo villa Soomaaliya iyo madaxtooyada galmudugba waxay aad doonayaan soo laabashada Cabdi Qaydid maadaama 4 sano ee farmaajo si weyn uu la shaqeeyay madaxweynaha uuna ka mid ahaa dadka nabadii nolol taageersan ee xildhibaanada ah dagaal siyaasadeed dhowr qorqor uu wajahayna ka difaacay ninkan qaybna ka ahaa dagaaladii al-shabaab ee ka dhacay gobolka Mudug dhowr iyo 20 bilyan ku jira doorka waxa markan lagu abaalmarinayaa kursigiisa inuu sii joogo maadaama uu noqday geesi difaacaya dalkiisa wadani dhab ah jecel dowladnimada dalkan Soomaaliya hase yeeshee beesha iskale kursigan ayaa aad u neceb in Xaaf la reebo oo Cabdi Qaydid soo baxo taabadelkeedana markan waxay qaadanayaan gariga daraba go'aanka ka soo baxay madaxweynaha galmudug Ahmed Cabdi Kaariye Qorqor doorashadii markan waa la gudagalayaa xaalkuna wuu isbedelayaa waxaana ay markan u muuqanaysaa in nabadii nolol ay gacanta ku dhigayso xildhibaanadii ugu badnaa marka loo eego kuraasta aqalka sare oo ah 54 kursi oo inta badan gacanta ay ku haysato villa Soomaaliya taasi oo ka dhigan in kala bar marka la fiiriyo aqalka sare gacanta ugu jira madaxweyne Farmaajo oo uu ku dashanayo in codadkooda uu heli doono hadda waxa socotay golaha shacabka oo waxa ay ka bilaaban doontaa maalmaha soo aadan magaalooyinka loo aseeyay xilli roob leh safar uu ku tagi doono dhammaan magaalooyinka loo aseeyay in ka dhacaan doorashada sida Baydhabo Baraawe Baardheere Kismaayo Boosaaso Garoowe Jowhar Beledweyne iyo sidoo kale magaalada Muqdisho oo joogo bas uu booqan doono goobaha loo aseeyay doorashada ka dhacaan ee kala ah xarunta Jarnaalka Kaahiya ama School Buluusiyo iyo sidoo kale teendada Avisioni haddaba daawade fikirkaaga iyo waxa ay kula tahay si aad u aragto in Xaaf dadka laga reebo una qaato lacag iyo kursi kale oo golaha shacabka ku reeb qaybta commentiga tan iyo kulan dambe nabadgelyo